leedihiin inaan soo gudbiyo haddii ilaahay yidhaahdo inaan iga yeeshaan oo codsigaas idinka shacabka oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka haddii aan fasiraad kooban ka bixiyo qaar ka mid ah wasaaradaha aan soo dhisay ee aan magacyadooda horay u jiri jirin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. marweeye mudane waan ku salaamayaa waana idin salaamayaa. cadaladan hadday idin soo gaarto fadlan sheer taawo sii gudbi waa waaska doqbilowhaa. maanta waxaan falanqeynaynaa wasiirada cusub ee lagu dhawaaqay. wasiirada cusub ee dalkeenna Soomaaliya 10kii sane u dambeeyay waxay ka koobnaayeen 26 wasiir ama 26 wasaaradood. waxaanu falanqeynaynaa wasiirada Soomaaliyeed awoodooda intay gaarsiisan tahay. waxaanu caawa falanqeynaynaa wasiirka Soomaaliyeed dhaqaalaynta leeg buu qaataa. waxaanu caawa falanqeynaynaa imise wasiir ayaa dalkeenna Soomaaliya maalintan xorriyadda qaadanay ilaa iyo maantayna soo maray. wax yar intaana barnaamijka gelin marka horeeto wasiiradii maanta lagu dhawaaqay ila dhageysta magacyadooda. 10ka bisha Oktoobar 2020 magaca sharcigu waa magacaabista golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble markii uu arkay qodobka 97 farqadiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 98 farqadiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay qodobka 100 xarfihiisa ba a ba iyo ca ee dastuurka ku-meel gaarka ah, markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, markii uu garawsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka 1 xubnaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. 1 mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ra'iisul wasaare ku-xigeen. mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiirka cadaaladda. mudane Cumar Cali Roble wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta. marwa Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka. Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda. mudane Xasan Xuseen Xaaji wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. mudane Xasan Xundubey Jimcaale wasiirka amniga gudaha. wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. mudane Cabdullaahi Abukar Xaaji wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. marwo Maryan Aways Jaamac wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. mudane Jamaal Maxamed Xasan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta. mudane Saalax Axmed Jaamac wasiirka wasaaradda dastuurka. mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka. mudane Khaliif Cabdi Cumar wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. mudane Saciid Xuseen Ciid wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. mudane Cusmaan Abukar Dube wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo
dalxiiska mudane cabdisheekh axmed roble wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda marwo xaniifa maxamed ibraahim wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane cabdulaahi bidhaan warsame wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane cabdirashiid maxamed axmed wasiirka wasaaradda betroolka iyo macdanta mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen badni wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa marwo fawziya abikar nuur waa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane xasan cabdi nuur wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha mudane duraan axmed faarax wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamed aadan mucallim Soomaali wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska mudane xamza saciid xamza wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga tirada maanta lagu dhawaaqay ee wasiirada dawladda Soomaaliya waa 26 wasiir oo wato wasiir dawlayaashooda oo wato wasiir ku-xigeenadooda oo wato agaasimayaashooda haddaan halkaa ku dhaafno dalkeenna Soomaaliya maalintan xorriyadda qaadanay ilaa maalinkan maanta ah oo 2020 ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu soo magacaabay golahiisa wasiirada tirada guud marka laga reebo wasiir dawlayaasha marka laga reebo wasiir ku-xigeenada marka laga reebo agaasimayaasha dalkeenna Soomaaliya waxaa soo maray 155 wasiir 155 muwaadin yaa dalkanaga xilka wasiirnimo loo magacaabay qodobka labaad 10 sano u dambeeyay dalkeenna Soomaaliya xukuumadihii soo maray inta wasiir ay magacaabeen ayaan idin soo gudbinayaa 2009 ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid waxa uu magacaabay 36 wasiir 2010 ra'iisul wasaare Farmaajo waxa uu magacaabay 18 wasiir 2011 ra'iisul wasaare Cabdiwali Cali Gaas waxa uu magacaabay 18 wasiir 2012 ra'iisul wasaare Saacid waxa uu magacaabay 10 wasiir 2014 ra'iisul wasaare Cabdiwali Axmed Sheekh waxa uu magacaabay 25 wasiir 2015 ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid waxa uu magacaabay 26 wasiir 2017 ra'iisul wasaare Khayre waxa uu magacaabay 26 wasiir qodobkayga saddexaad Soomaaliyow caawa waxaan ku faahsiinayaa awoodda uu wasiirka leeyahay wasiirka Soomaaliyeed mishaar ahaan wuxuu qaataa $5,000 bishii dalkeenna Soomaaliya wasiirada aan laga maarmin ee shir walba ka qayb galo aan ku soo gudbiyo caawa waa 5 wasiir 26 wasiir markii 5 laga gooyo waxa soo haraysa 21 wasiir 21 wasiir ee soo hartay xafiis male dalka Soomaaliya 5 wasiir ayaa muhiim u ah 5 wasiir caawa aan ku soo gudbiyo Soomaaliya 26 wasaaradood baa loo sameeyay qabiilka inuu shaashada iska arko laakiin qabiilka inuu shaashada iska arko asaa ku dagaayo Soomaaliya maxaa dan u ah wasiirka arrimaha dibadda qabiilka inuu shaashada iska arko asay dan u tahay Soomaaliya maxaa dan u ah markii ra'iisul wasaare la bedelo kii matalaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkayga Soomaaliya maxaa dan u ah marka laga tago qabiilka shaashada iska arkayo dalkayga waxaa dan u ah wasiirka maaliyadda ee dhaqaalaha xisaabiyo Soomaaliya qabiilka shaashada iska arkayo marka laga tago dalkayga maxaa dan u ah wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka aviationka ee Soomaaliya
marka laga tago qabiilka shaashada iska arkayo dalkayga Soomaaliya maxaa dan u ah wasiirka dekedaha dalkayga waxa soo galaya xisaabinaya ee canshuurta ka qaaday laga rabi doonaa shax noocaas waxa kale oo lagu soo dhaweyn doonaa hadii ilaa yiraahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqeyn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqeyntiisa waa barnaamijka xukuumadda waxa kale oo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas'uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba waxa kale oo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay cadaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kalifi doontay soo shaqeeynin adeegii bulshada iyo kulli amniga ay xogayas xaqad galeen ayadoo intaas ay jirto waan haddana waxaan isku dayay in halkasta xasilooni siyaasadeed wax keeni kara iyo xukuumad keeni karta inaan soo dhiso waxaan isku dayay waxa laga horeeyay waan halkan soo galay oo hadda aniga siyaasadii socotay qaybna kama ahayn kuma dhex jirin runtii anoo soo dhex galay haddana waxaan u imid waxay ahayd bal wixii xasilooni siyaasadeed soo korin karta inaan soo kordhiso waa garan karaa baarlamaanka yacni fakarkiisa iyo dareenkiisa runtii anoo intaas tixgelinaya baan waxaan rabaa haddana xukuumadda wasiiran aad talo ku leedihiin inaan soo gudbiyo haddii ilaahay yiraahdo inaan iga yeeshaan oo codsigaas idinka iyo shacabka Soomaaliyeed oo mahadsantihiin haddii aan fasiraad kooban ka bixiyo qaar ka mid ah wasaaradaha aan soo dhisay ee aan magacyadooda horay u jiri jirin sida wasaaradda khayraadka dalka waa wasaarad u xil saaran khayraadka beeraha xoolaha kalluumaysiga macdanta iyo tamarta wasaaradda horumarinta adeega bulshada waxay u xil saaran tahay arrimaha waxbarashada caafimaadka shaqada dhalinyarada iyo isboortiga mudana madaxweyne mudanayaal waxaan ummadda horteeda ka ballan qaadayaa in xukuumadaydu u bareeri doonto ka gudbista caqabad kasta iyadoo kaashanaysa shacbiga Soomaaliyeed shanta wasaaradood ee dalkeena ugu qiimaha badan markii wasiiraha shanta laga reebo saddexda ugu qiimaha badan ama afarta ugu qiimaha badan waa maxkamadda waa baarlamaanka waa madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha Soomaali 4.5 bay ku qaybsatay waxba yaa lagu wareerin shanta soo xigto Soomaali 4.5 bay ku qaybsatay waa shanta wasaaradood ee ugu qiimaha badan waa shanta wasaaradood ee shir walba ka qayb gasho waa shanta wasaaradood ee ugu lacagta badan Soomaali way isdishay way isbaabi'isay wax way isquuri weysay qabiil walba wuxuu yiri inaa shaashada iska arkayaan u baahanay macna badan kuma fadhiyo wasiir magacan loo magacaabay dalkayga wuxuu u baahan yahay waxa weeye wasiirka dekedaha wasiirka aviationka wasiirka arrimaha dibadda ra'iisul wasaare ku xigeenka hadduu dhinto wasiirkayga koobaad ee dalka Soomaaliya 26 wasaaradood ee maanta uu ku dhawaaqay Master Roble ra'iisul wasaaraha dalkayga waa qancin waxaad ogaan kartaa wasiiro qaarkood oon xafiiso lahayn wasiiro qaarkood oo aanan lahayn meel loogu soo hagaago iyo bio box caalamka ma jirto ra'iisul wasaaraha 2020 loo magacaabo dalkeena Soomaaliya waxa uga duwan yahay ra'iisul wasaarayaashii loo soo magacaabay dalkeena Soomaaliya waxa weeye wuxuu la dhashay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalkeena Soomaaliya loo magacaabo 1956 ayay isku qabiil noqdeen ra'iisul wasaare Roble wuxuu nasiib u yeeshay uu hantay dhaxalkii Cabdullaahi Ciise